بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu bilaabanaynaa cashirkeena aan ku ballansanayn maalin kasta oo jimcaha ee arbiciinka ahaa. waxaynu maraynaa xadiidkii saddexaad. can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma. can abi cabdiraxmaan aabihiis waxaa laga wariyey cabdillaahi bni cumara ee ahaa cabdullaahigii ina ibni cumar ee cumar bn khadaab wiilkiisi, radia allahu allah ka raali noqda canhumaa labadoodaba, cumar iyo wiilkiisa cabdullaahi. marka xadiidkan waxaa inoo warinaya abi cabdiraxmaan oo ay u tahay kunyo cabdullaahi bn cumar. cabdullaahi bn cumar waxaa dhalay cumar bn khadaab radia allahu canhu oo ah saxaabigii jaliilka ahaa ee noo soo wariyey xadiidkii koobaad iyo kii labaad. qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi alla rasuulkiisi sala allahu alayhi wasalam yaquulu asagoo leh alslaamu diinta islaamku, isagoo dhahaya buniya alislaamu, buniya waxaa lagu dul taagay ama lagu dul dhisay ama lagu dul qotomiyey alislaamu diinta islaamka ah calaa 5 5 udub ama 5 tiir dushood. shahaadati qirid la qiro oo afka intii lagaga dhawaaqo kadibna qalbiga lagu qabto lana barto an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla keligiis maahane. waana sida aayadda qur-aanka ahayd dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albatilu wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir. waaya wa ana muxameda nabi muxamedna sala allahu alayhi wasalam rasuulu llahi waa alle rasuulkiisii sala allahu alayhi wasalam. halkaa marka rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu inagu barayaa 5 udub ama tiir ee islaamka uu ku taagan yahay. tiirkii koobaad oo ah laa ilaaha ila allahu oo xaqii allah subxaana wa tacaala u ah, iyo ka dambe oo ah wa ana muxamedan rasuulu llahi, rasuulkeeni sala allahu alayh wasalam. muxuu rasuulku marka sala alla alay wasalam labada isu raacsiiyey? oo waxaa laga hadlaya waa allah oo khaaliq ah iyo rasuulkeeni sala allahu alayh wasalam oo makhluuqiisii ah. waxaa la isu raacsiiyey cibaado kasta oo qofka muslimka uu sameynayo 2 shardi ayay u baahan tahay. haddii mid kamida uu ka maqan yahay, cibaadadaasi waa halbacaad lagu dhisay. shardiga koobaad wuxuu yahay waa al-ikhlaas, muxuuna ku guda jiraa laa ilaaha ila allah. qofku markuu yidhaha laa ilaaha ila allah wuxuu la yimid shardigii koobaad oo al-ikhlaas ah, oo wixii alla ka soo haroo dhan ayuu meel iska dhigay. shardiga kalena waa almutaabaca, yacni cibaadadani inaad rasuulkii sala allahu alayhi wasalam uga dayanaysid inuu asagu sameeyey. labadaas maadaama mid kamida aanan cibaadadii ka maarmeynin ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam labada wada socda hal rukni uu ka wada dhigay. marka haddii qof diinta inuu shaki kaa geliya rabo uu ku yiraahdo maxaa la isugu dawadaa rasuulkii allah sala allahu alay wasalam iyo allihiis, maxaa 2 rugni looga kala dhigi waayey? waxaad leedahay cibaado kasta oon sameynayo 2daas shardi ayay u baahan tahay. sidaasuna rasuulku sal ly slam hal xaba uga wada dhigay. wa iqaami salaati, salaada oo la oogo, tukasho iyo oogid inay kala duwan yihiin xadiidkii hore ayaan kusoo tilmaanay. wa iitaai zakaati, zakada uu qofku uu bixiyo oo masaakiintii mutaysnaa uu siiyo. wa xaji lbeyti, qofka oo soo guta xajkii oo waajibkii faradka ahaa ee cumrigiisoo dhan hal mar laga lahaa iska soo rida.
wa sawmi ramadaana qofka oo sooma bisha ramadaan. rawaahu waxaa wariyay albukhaariyu, bukhaari wa muslim iyo muslim ayaa wariyay. xadiidkan marka saddexaad waa xadiid cajiiba. rasuulkani sala allahu alayh wasalam wuxuu diintii oo dhan, marka alislaamu la sheego iimaan iyo islaam labadii way ku guda jiraan, waayo alla wuxuu le ina addiina cinda allahi alislaam waman yabtagi gayra alislaami diinan. marka iimaan iyo islaam markii mid keliya la sheego way soo hoosgelayaan. muxuu rasuulka sal ly slm marka inugu tusinaya oo mucjizo ah inuu islaamku yahay sida guri oo kaleeto. gurigu tiir la-aan ma istaagi karaa? waa maya. gurigu iftiin la-aan ma lagu noolaan karaa? waa maya. rasuulku marka sala allahu alay slam wuxuu leeyahay islaamku waa sida guriga oo kaleeto. maadaama gurigu udubyo iyo tiirar uu ku taagan yahay, islaamkuna 5 tiir ayuu ku taagan yahay. qofkii marka 5 tiir ay u dhamaystiran tahay, qofka islaamnimadiisii way u dhamaystiran tahay. qofkii laakiin hal tiir oo kamida uu ka maqan yahay, qofkaasi islaamnimadiisii way kala dhiman tahay. waayo dadka marka aan qurbaha kusoo arkay, mushkilada haysatahay waxay tahay wuu walwalayaa. war qof guri tiirarkiisu ay xash yihiin ama uu aboor u dishay, qof gurigaasi hoos jiifaayey, qof ma yahay qofkaasi qof si fiican u hurdi kara ama ay maskaxdiisu ay digi karto? waa maya. dadkeena qurbaha jooga marka 5 tiir ee uu rasuulku sheegay sala allahu alayh wasalam, marka laga reebay midka tawxiidka ah, 4 kale way inaga wada jaban yihiin. kow, salaada u horeysa. markii hadda xiliyadan lagu jiro kulaylaha ah, salaad subax way u dhamaatay, waayo waxay soo gelaysaa 3 oo kaleeto. inta badan dadku way ka seexdaan. waxaa laga yaabaa qofku inuu tukado markuu barqadii u soo kaco. subxaan allah. salaadii dadka qurbaha jooga way jaban tahay. kow, horta tiirkaasi aboor baa galay oo tiir wax celin kara maaha. ka labaada kugu soo xigo ah itaa zaka. hanti ay wax ku bixiyaan umaga ururtaba, saawaxooda waa wax markaasun caloosha la geliyo. waaya ka kale ah xaj ilbeyt, asaguna wuu inaga jaban yahay. sababtuu inaga jaban yahay waxay tahay, waxaad arkaysaa qof qurbihii jooga oo wadankii guryo iyo daaro ka dhisaya, oo intaasoo ay caaro ay dilatay. haddaad weydiiso ku tiraa warniyo xajkii miska soo riday waajibka ah, mayu ku leeyahy. hadda u fiiri, guryahaasoo dhisay waxaa laga yaabaa guriga ugu yar inuu $30,000 u yahay. xajkuna waxaa laga yaabaa inuu halkaas sano uu ka qaadan karo 10,000. marka xajkiina isagoo uu ku waajibay oo shuruudiisii ay taagan tahay, yaa laga yaabaa inuusan qofkii soo gudanin. rugniga isaguna waa rugni aan caga fiican aan ku taagnayn. ramadaankii baa kuu saaray. bisha ramadaan markii xilligaan kaleeto la gaaro, waxaa arkaysaa qof uu ilaahay xoog siiyey oo dhalinyaro ah oo kuleh waan wadi kari waay, waan awoodi kari waayo. maxaa yeelay saacadihii baa dheer. saacadihii maalinkii ayaa dheer, habeenkiina uu yaryahay. marka waxaynu hoos jiifnaa marka gurigii tiirarkiisu ay wada liiteen. maadaama tiirarkii 4 tiir ay inaga liitaan, maxaa yimid marka inuu walwal iyo stress iyo dhibaato ay noo kororto. marka waxaan dhihi lahaa, haddaan rabno inuu qalbigeenu u dego, bal salaada ugu horeyse aynu meel iska saarno. xajkana qof walba bal dib isugu noqo. guryaha aada dhistay inaad calfan doonto iyo inaad caruurtaada calfan doonto war uma haysid, bal asagana xajkii meel iska saar. taa marka waa ta ku saabsan. gurigu marka wuxuu u baahan yahay iftiin. guryahanu joogno maxaa iftiin u ah? salaada waa. rasuulkuna muxuu sal slam asalaatu nuur, salaad waa iftiin. markaad qof dhalinyara la kulantid oo problem iyo sheeganaya, su-aashaan weydiiye waxay tahay, salaada say isku tihiin, gaar ahaan salaada subax? wuxuu ku leeyahy barqadii markaan soo kaco ayaan tukadaa. maxay marka tusinaysaa mushkilada ugu badan ee dhalinyaradeenna haysataa inay tahay salaad la-aantaas. waxaad arkaysaa nin naagtiisa isku dhegan oo isku rafaadsan, markaad weydiiso tira waa salaadii guriga say tahayna, salaadii waxaa laga yaabaa inaysan labadooda midkood una tukanin, ama hadduu tukadana waktigeedii oo dhammaaday inuu tukado. salaad subaxna inaysan xisaabtaba ay ku jirin. marka problemka fashilka ugu horeeya qofku inuu duniyadan ku fashilmo
waa salaad la-aanta. qofku inuu guuleysto waxa najaaxa ugu horeeyana waa salaada. marka taa salaada dhinacaas ayaan ka oranaya. laba arrimood marka aan baraarujinaya. arrinta koowaad waxay tahay caqiidada ku tacalluqda. markaan qurbaha aan ku noolnahay, qofka Soomaaliga ah markuu arko qofka ama gaalka ah ee la jooga wadankii oo noloshiisii ay isu saaran tahay oo baabuur fiican wata, waxa wadankii dunida muslimkeena qofku markuu arko inuu fikro yiraahdo maxaa muslimiintiina dhibka iyo faqriga iyo rafaadka geliyay, gaaladiina maxay barwaaqadan iyo ay ugu jiraan. taas waxa laga marka qofka inuu shaydaanku ka faa'iideysto inuu caqiidadiisi uu dhib geliyo. waxaa dhici karta xitaa kuwa diinta qofka shaki gelinaya inay ayaguna ay dhinaca ay ka soo galaan. taabaan marka rabaa inaan cilaajiyo si qodobka ay noogu badbaado caqiidada. horta marka ugu horeysa Allah asmaadiisa maxaa kamid ah Ar-Rahmaan. faatixada markaad akhrinaysidna Ar-Rahmaani Ar-Rahiim. marka culimadu fasirayaan Ar-Rahmaan maxay yiraahdaan waa Allah naxariista guud naxariista. Allah naxariista guud naxariista. waaya Ar-Rahmaan markay sida tahay Allah subhanahu wa ta'ala asaga abuuray bil aadanka oo dhan. kulli maxay wada yihiin waa adoomadiisi. laakiin laba loo kala baxay adoonnimadiisii qirtay oo qofka muslimka ah wado iyo way uu guulaha ku gaaro iyo Allah subhanahu wa ta'ala uu sameeyay, iyo adoonnimadii alla diiday qofkaasina asaguna waa qofka gaalka ah. asaguna muxuu leeyahay wuxuu leeyahay wado kale oo noloshii guusheeda uu ku gaarayo. suurtagal marka ma tahay qofkii muslimka ah iyo qofkii gaalka ahaa inay isku si guusha ay u gaaraan ama isku wada ay u maraan? waa maya. haddaba marka adduunka noloshiisa aad arkaysid waynu ku kala duwannahay. waayo markii laga hadlayo nolosha adduunkan xagga waa laga siman yahay gaal iyo muslim. arsaaqda gaal iyo muslim xagga alle waa u siman yihiin. waan cibaadaystaa oo qof muslim aan ahay waa inaan raaxa aan ku noolaada may. qofkan waa gaal waa inuu dhibaato iyo diiq iyo dhibaato gaajo uu ku noolaada adduunka may ma soconayso. maxaa taa markaa shaafina ayadda qur-aanka ahayd ahum yaqsimuuna raxmata rabbik. Ar-Rahmaani Soomaali alla wuxuu leeyahay ahum yaqsimuuna raxmata rabbik. ma iyaga alla naxariistiisa qaybanaya. naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya. adduunkan gaal iyo muslim waa loo sameeyay. alla ayaa inoo qaybiyey qof walbana wuxuu cuni lahaa oo afkiisa gelin lahaa maalinka xab iyo biyaha u qoray isagoon u fiirinin muslim iyo gaal. naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaat. haddana asaga dadka alla subxaana wa tacaala kan hani hanti badan siiyey, kan caruur siiyey, kun caafimaad siiyey, isaga dad kala fadil. muxuu u sameeyey liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya, si qaarba qaarka kale ay u noqdaan kuwa ayaga u shaqaynaya oo ayagu kuwa kale ay u baahan yihiin, dad isu baahan. ereyga sukhriyan qaar waxaa arkaysa ku fasiraya jees maya ma ahan. sukhriyan siinku wuu godan yahay. hadduu siinku hoos dhignaan lahaa sikhriyan buu jees noqon lahaa. laakiin sukhriyan alla muxuu ka wadaa asaga addoommada isu cabiidiyey oo isu baahiyey. qofka hantida haystaay yaa u baahan, faqiirkii baa u baahan. ka hantiiluna muxuu u baahan yahay cidda ugu shaqayn lahayd. marka allah isu sakhiray. muxuu marka alla subxaana wa tacaala jideeyey qofka gaalka ah waxaa loo ballan qaaday inuu adduunkan ku noolaado. numaticuhum qaliilan, waayo dheeftiisii oo dhan adduunka ayaa loogu soo hormariyey. laakiin qofka muslimka ah dheeftiisa maxay tahay waa aakhiro. qofka gaalka ah hadafkiisa yoolkiisa inuu ka mira dhaliyo rabo waa adduunka gudihiisa. qofka muslimka ana adduunku muxuu u yahay boondadii uu sii mari lahaa. hadafkiisa waa aakhiro. sidaasna marka aad ku kala duwantiin. alla marka subxana wa tacaala muxuu sameeyey nolosha adduunka lagu noolaanayo asbaab buu u yeelay. qofka asbaabta la yimaado unbaa raaxo adduunkan ku noolaanaya oo gaajada iyo dhibka ka jira ka baxaya. qofkan asbaabta la imaanin hadduu qofka muslimka asbaabtii uu la yimaado uu ka baxaya. hadduu qof gaalka la yimaado uu ka baxaya. tusaale aan ku siiyo marka waddanka Denmark waa waddan aad iyo aad u yar, khayraad badanna ma haysto. waddankan Spainna waa waddan aad iyo aad u weyn, dadkiisuna aad u tiro badan yihiin. Spain dadku faqriga waxay marayaan 13 milyan bay marayaan dadka faqriga. Denmarkna waxaa laga yaabaa inuu faqrigu dadkoodu aad u yar yahay. waay marka isbarbarig waxay tahay Denmark asbaabtii ay adduunkan ugu noolaan lahayn dadkooda raaxo ayay qaadatay oo ah cadaalad. wixii ay qorteen oo dastuurkii ahaa ayay ka mira dhaliyeen oo ay wada mariyeen. sidaas marka ay ku heleen barwaaqadaas iyo waxa ay ku jiraan. laakiin waddanka Spain
waxaa ka jira inaysan dhaqan gelinin dastuurka u qornaa. waayo waxaa ka jira wax la yihahdo corruption baa ka jira. qaanuunki waa la qoray, miiska hoostiisuu yaalaa, wuxuu kugu xukumaya qofkaani, uu kugula dhaqmayaa wax asaga markaa uu u yaalo. hadduu ku jecel yahay uu kusoo dhaweysanaya, hadduu ku neceb yahayna waxaa laga yaabaa inuu qodob adag uu ku qabto, hadduu ku jecel yahayna qodob sahlan. taas marka waxay keentay laba wadan oo gaal ah oo haddana reer Yurub ah, midna inay dadkiisu barwaaqiya wanaag ay ku jiraan, midna ay dadkiisu 13 milyan ay faqriyiin. 10 sano u dambeysay wadanka Spain waxaa ka haajiray oo ka tegay wadamadaas shaqo iyo nolol u doontay 4,000 oo qof oo u dhashay wadankan. waay marka maxaa meesha yimid? waraaqihii u qornaa ee meeshan ay u samaysteen ay reer Denmarkna ay dhaqan geliyeen, muxuu ahaay reer Spainna aysan dhaqan gelinin. sidaas marka noloshii adduunkii ay ku kala hormareen. inaga marka muslimiinta kitaabu Allah subhanahu wa ta'ala inoo soo dejiyay, kitaabka quraanka haddaan ku dhaqanno oo aynu qaadano, nolosheen maxay noqonaysaa? wa an law istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan qadaqa. maxaynu samayn marka? kitaabka meel baa iska dhignay, wax kitaab aan ku dhaqanno ma jirto. haddana intaynu wax qoranay, waraaqihii aynu qoranay ma aynan ku dhaqmin oo dunida muslimka oo dhan. sidaas marka waxay noqdeen dadka dunida muslimka u dad rafaad iyo dhibaato ku nool. laakiin wadamadan reer Yurub qaybtii wixii ay qorteen dhaqan geliyay ee tixgeliyayna barwaaqo marka ku nool. marka adduunka noloshiisu kuma xirna kana muslima iyo kana gaala, waxay ku xiran tahay qofka asbaabta Allah subhanahu wa ta'ala uu talagalay la yimaada, qofka ayaa nolol fiican ku noolaanay. marka maanta wixii ka dambeeya waxba ha ka murkin adigu hadafkaaga. maxaa ku soo khatimay marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa maalma kamid ah isagoo darin ku jiif yaa wuxuu yimid Umar ibn Khattab. Umar baa markaas wuxuu ku yiri rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam markuu ka soo kaco arkay isagoo dhinaciisa ay darintii ku sawiran tahay. rasuulka Allah wuxuu sallallahu alayhi wasallam boqoradii adduunka Qaysar iyo Kisra iyo kulligood waxay ku nool yihiin xariir iyo raaxo ay ku jiifaan, adiguna adoo khayru khalqillaahi ah yay darintii ay kugu sawiran tahay, bal isqabad sii buu yiri. rasuulka sallallahu alayhi wasallam intuu soo kacay oo fariistay wuxuu ku yiri Umar intuu ku qoslay, miyaada raali ku ahaanaynin in ayaguna adduunka ay ku raaxaystaan, inaguna aakhiro aan jannadii Allah ku raaxaysano? soo ma jeedid? yani rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku qanciyay Umar inagu hadafkeenu adduunku waa inoo wasiilo, laakiin hadafkeenu waa aakhiro iyo janno. laakiin qofkan gaalka ah hadafkiisu waa adduunka, marka ayagu raaxadooda ku dhamaystirtaan taayir. haddana ogow qiinada iyo hodantinimadu waa qalbiga. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam guriga kama tagin, daara kama tagin. haddana Allah markuu suuratu duha ku tilmaamay muxuu yiri alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka ca'ilan fa'aghna. qiinada maxay tahay? waa midda qalbiga. marka maanta wixii ka dambeeya adduunka gaal iyo muslim waa loo sameeyay. marka ayagu wixii ay qorteen ay dhaqan geliyeen, barwaaqadaas ay ku noolaadeen. inagoo muslimiina markaan kitaabka quraanka meel iska dhignay, wixii aan qoranayna aynu ku socon weynay, dhibkaasa wadamadii muslimka ka jira. waa intaa un arintu kaliya. arinta kale muhiimka waxay tahay war qofka dhalinyarada ah ku dadaal in aad muxuu ahaaye salaada marka waa waxa kaliya ee guryaheena baabi'iyay, dhalinyaradeenana u diiday inay hadaf ay nolosha ay ka gaaraan. maxaa marka salaadana ayaduna aan ku xusuusinayaa Xudayfa ibn Yamaan radiyallahu anhu ayaa maalmaha kamid ah isagoo isaadka dhex fadhiya waxa soo galay ninkii uu tukaday. markuu ninkii tukaday buu Xudayfa wuxuu ku yiri wallahi ninkaas hadda tukaday haddii uu sidaa ku dhinto wuxuu ku dhiman lahaa diintii rasuulka sallallahu alayhi wasallam diin aan ahayn, ama sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam sunna aan ahayn. xadiidku waa saxiix, Bukhari ayaa warinaya. muxuu ku haystaa marka ninkaa rukuucdii iyo sujuudii ayuu dadajiyay. war xataa intayna tukanaysa salaadeen waa anig salaad sida ninkaas oo kale salaadiisi way qalbigeenu u maqan yahay ma dhamaystirayno. marka waxaan dhihi lahaa haddaad rabtid guul gaartid salaada ka warhay. way rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu murugo u dareemo muxuu dhihi jiray bilaalow inoogu raaxe istaag oo aqim oo salaada noogu raaxe. inagu laakiin maanta maxaan leenahay war salaada inaga soo gabagabeeya. hadda ramadaanka soo socda waxa laga yaabaa dadka qurbaha jooga masaajid wax yar lagu tukanayo markiiba la kala tuurayo iyo masaajid lagu irdaahayo. keed aadaadu marka waxaad aadaa ka markiiba la kala tuurayo.
meesha rasuulkeena sal ly slam uu dhihi jiray bilaal oo nagu raaxe oo salaada uu raaxadiisa ka heli jiray, inagu ayadii aan kasii cararayna, ayadii baan sii kala xadayna. markaan kala xadno marka xaggee deganaashi iyo aan ku helayna. marka salaadana aan ka warhayno, adduunkana waxba isku murjinine, sabab buu u baahan yahay. ciddii sababtaa la timaadana barwaaqo iyo guul bay ku noolaan, ciddii aan la imaanina dhib iyo faqri ayay ku noolanaysa. waana intaa un keliya waxaa hadda yaala ee caqiidadaada yaan lagaa khalkhalgelin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.